ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 17aad waan ku hormarnaa khayrka. Bar ilmahaaga in ayada oo aan loo eegin waxa dareenkiisa ama fikradihiisa yihiin uusan xaq u lahayn inuu dadka kale ula dhaqmo si aan cadaalad ahayn. Tusaale ahaan, bar in uu raali geliyo marka uu waxyeelo qof kale, taas oo kuu ogolaanaysa inaad tusto qiimaha ay leedahay qaadashada lahaanshaha falalkiisa. Si ilmahaaga fursado uu ku sameeyo shaqooyin samafal ah. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. Waan ku hormarnaa khayrka. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba. Si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.